haweeney dishay ilmo yar oo ay korsanaysay kadib markii uu oohinta ka badiyay. intaan u gudagelin sheekada haddii ay tahay markii kugu wareysa aad na soo booqato fadlan nagu soo biira mahadsan. waxa uu ahaa ilmo yar oo qurux badan, waxa uu jiray 13 bilood oo kaliya, waxaana dishay oo adduunka dhaafisay haweeney doonaysay in ay korsato. haweeneyda dishay wiilka yar ee ay korsanaysay ayaa hadda waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, waxaana hadda ay qaadan doontaa 18 sano oo xarig ah. waxaa dib loo furi doonaa 18 sano kadib dib u dhageysiga dacwadeeda. haddaba maxay tahay sababta ay u dishay haweeneydan ilmahan yar ay doonaysay in ay korsato? ku noolaanshaha dalka Ingiriiska, wiilkan yar oo asal ahaan ka soo jeeda isla dalkaasi ayaa nolosha ku adkaatay, waxaana qoyskiisa ay u raadiyeen qoys korsada oo daryeela. waxay si ku meel gaar ugu dhiibeen qoys kale oo noloshiisa kafaalad qaada, si bal loo soo raadiyo qoys kale oo noloshiisa dhan kafaalad qaada. waxa uu ahaa wiil yar oo aad u qurux badan, faraxsanna markasta. waxaa sidaasi warbaahinta u sheegtay haweeneydii 8 bilood ee u horeysay korsatay wiilkan yar. waxa uu ahaa mid kor iyo hoos u boodbooda marka uu ciyaarayo, waxa uuna jeclaa in uu wax dhageysto. waxay ahayd in la qaato ayay tiri haweeneydan korsatay wiilkan yar 8 bilood ee u horeysay noloshiisa. qalliin looga sameeyay dheefshiidka ayaa uu ka bogsooday, waliba si wanaagsan ayuu uga bogsooday, waxaana kordhay miisaankiisa. war kale oo farxad leh ayaa soo yeeray bishii May sanadkii 2020 markaasoo la helay qoys korsada. wixii ka dambeeyay bishii May sanadkii 2020 waxaa dishay wiilkan yar haweeneydii la wareegtay oo doonaysay in ay korsato, kadib markii uu in badan ka badiyay oohinta cunadii la diiday.